armiin ogol xaq darro ma ogolin sharci darro ma ogolin haddii aad degdeg u soo dayn weydo madaarka Hargeysa ka soo degi maysid buurta kala jeexnid ka soo degtaan ku sheeganaa nawtis waxaan xidhayaa waa sharciga rag ama dheere ku jira wax sharci darro ay ugu jiraan rag baa ma dheere jibiyay waa la jibin doonaa ayakaanu qafaalin doonaa waxa weeye in sharciga dib loogu soo noqdo waxa weeyaan rag waxa jiri doona sidii lixleynta ay ugu daataan iyana kood buur soo saari doona oo waliba soo galbin doona Hargeysa geyn doona xildhibaan Siciid Cabdisamed Siciid Culey oo kamid ah mudanayaasha golaha deegaanka caasimadda Hargeysa oo hortaagan qaar kamid ah dhalinyarada ayaa haweenka ku dhaqan caasimadda Hargeysa ayaa waxa ay dhalinyaradaasi si adag ugu hadleen xariga ay xukuumadda Soomaaliland ay kula kacday mas'uuliyiinta ka tirsan labada xisbi mucaarade taasi oo mas'uuliyiintaasi loo dhaadhiciyay dhakaasi iyo xabsiga Mandheera ugu horreyn waxaa madashaasi ka hadlay xildhibaan Siciid Cabdisamed Siciid Culey oo sheegay inay hortaagan yihiin boqolaal ka mid ah dhalinyarada caasimadda Hargeysa iyagu doonaya inay sameeyaan mudaharaad ay kaga soo horjeedaan xariga mas'uuliyiintaasi xildhibaan Siciid Cabdisamed Siciid Culey oo ugu horreyn arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi mujtamaca inaanay ka falcelinin sharci darradan socota oo aanu mar labaad leenahay sharciga ayaanu ixtiraamaynaa ee lagu soo noqdo sharciga mujtamacan waxaanu ka hortaaganahay dadkooda xidhan ee qaar ka mid ah aan laguba haysan meesha mudaharaadku ka dhacay oo uu ka mid yahay Yuusuf Kayse Cabdillaahi Cukuso Xamarji nimankaasoo dhan waxa lagu hayaa sharci darro oo weligeed maynaan arag dad aan maxkamad xukumin oo Mandheera la geeyo istiil sharcigiina lagu soo doortay baanu ixtiraamaynaa waxa aanu leenahay nimanka xaqooda ha loo soo celiyo wax walibana ha noqdaan sidii lagu soo celiyo hadallada ka socda ceerigaabo waxay tusaysaa in beelaha afka la isu gelinayo oo cidaan iska horkeenkii beeluhu xataa u bilaabmay annagu waxaanu leenahay sharciga ha lagu soo noqdo sharcigu waa muhiim dadka iyagu waa kuwa halkaa taagan ee aan waxba samaynahayn eenu leenahay jooga sharciga lagu soo noqonayaa waxaanu fariin adag u diraynaa mudanayaasha golaha baarlamanka oo ilaa imika waraaqaha ay hor yaalaa ay sharci darro yihiin mujtamaca reer Soomaaliland waxaanu u diraynaa baaqa annagu nabadda waanu ilaalinaa annaguna sharciga waanu ilaalinaa inamadayadu waxay jeelka stationka Mandheera u taagan yihiin waa xaq darro u joogaan xaq darradana ma ogolin armiin ogol xaq darro ma ogolin sharci darro ma ogolin in aayar ay dadku iska xidhnaadaanna waa sharci darro sharciga Soomaaliland wuxuu sheegayaa 24 saacadood wixii ka badan maxkamadda laga qaato in la sii hayo nimanka may dhicin Mandheera lagu hayaa kuwii la kiiska ahaa ee uu ka mid yahay waabeeye markaanu hadalay waa la soo daayay inamadayadu waa taargetna ma ogolin qof aan lagu haynin hebel iska soo xidh adeer faqashtii baa laga diiday imikana waxaan leeyahay mujtamaca innagu sharciga ayaynu ilaalinaynaa sharciga ayaynu u hoos joognaa nabadda ayaynu ilaalinaynaa mudaharaad ma doonayno waa kuwa dadkayagii sida sharafta leh ilaa koone u taagan annagu waxaanu diidaynaa inay sharci darro ka dhacda halkan waxaanu diidaynaa inay dadka iyagu qaxaan waxaanu diidaynaa in dadka doonaya in la mudaharaado dadka doonaya dalkan in la jajabiyaa meesha ka imanaysa waanu garanaa xisbiyada baxaysikana maaha booliska waxaanu u sheegaynaa oo aanu ciidamada qaranka u sheegaynaa in sharciga lagu soo noqdo oo hebel baa la iska haystaa ay meesha ka baxdo sidoo kale waxa iyaguna madashaasi ka hadlay qaar ka mid ah dhalinyaradii iyo haweenkii madashaasi isugu soo baxay waxaana ay xukuumadda madaxweyne Biixi ugu baaqeen in sida ugu dhaqsiyaha badan la xorriyadooda lagu soo celiyo mas'uuliyiinta labadaas xisbi mucaarada ee ku xidhan xabsiga Mandheera iyagoo arrimahaasi ka hadlayna waxay yiraahdeen maanta halkan waxaan isugu nimi in aynu dareenkeena aynu ka hadalno lambarka koobaad waxa weeye maanta waa maalintii koobaad ee aynu hadli doono uguna dambayn doonto waxa weeye maalin dambe ka hadli mayno TV kana caban mayno nimanka xidhanna cid u bari mayno
cudub baryamayna waxa weeye tantii diyaaradaha iyo dabaabadaha iyo sawirqaadayaasha lahayd ee kaba adkayd xoogga dalka Soomaaliyeed baa la baabiyay AK47 baa lagu baabiyay waxa weeye anagu ka baqan mayno inamada yar askartii bilayska ee waxaanu ixtiraaminaa waa shaarka ay xidhan yihiin cidna hor istaagi kartaana ma jirto waxa weeye inanka yar wuxuu ka yimi xaafad kasta guri kasta uu ka yimi inamada yar bilayska iyo ciidanka qaranka lagu hanjabaya waxaan waa qabiil gaani beela wada yaalo weeye beelaha wada yaalo dastuurkii aanu qoranay iyo axdi qarameedkeenii hadii laga gudbo waxa lagu noqon doonaa meel fog waxaan kale sheegaynaa maanta dhammaan dareenkaygu waxay halkan intan taagan mujtamacan ee degmooyinka Maxamuud Haybiye Maxamed Mooge iyo Gacan Libaax iyo Axmed Dhagaxba ay ka hadlayaan waa qadiyadooda iyo dareenkooda inaan cidnaba la celin karin waxa weeye dareenka dhabta iyo rabitaanka shacabka Soomaaliland waxa uu ku xidhan yahay in la qabto doorasho dastuuri ah 13 November doorashadu hadii ay dhici weydo anagu Muuse Biixin oo ma naqaan madaxweyne wasiir damana wasiir ma naqaano cidda xaafadayda magaca metelaysa wasiiriinta kolba hudheel yar tagayana dib u tagi doonaan xaafadan waaqaceed iyo nolosha ay ku nool yihiin cid ka warhaysa ma jirto waxa weeye intaan niga danaysanay inaan haddana inagu kibirno mid dhacaysa ma aha Muuse kursiga la isugu imanaya dalka Muuse iyo Maxamed Kaahin ma maamuli doonaan sharciga maamulaya waxana qabanaya waa sharciga waxana xidhaya waa sharciga rag ama dheere ku jira wax sharci darro ay ugu jiraan rag baa ma dheere jabiyay waa la jabin doonaa ayakaanu qafaalin doonaa waxa weeye in sharciga dib loogu soo noqdo ayaanu faraynaa fariintii ugu dambeysay aanu farnana weeye xukuumaddaana wada qalalaasahan iyo afkambigan iyo riwaayadan oo dhan waxayna doonayaan sidii ay mujtamacan u kacaanay muddo kordhin u sameeyaan inaguna waxaanu faraheena ka ilaalinaynaa inaan muddo kordhin ay ku marmarsadaan aynu sameeyaan bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan aad iyo aad u salaamayaa dadweynaha halkan isugu yimi ee ka dhiidiyay nimanka xidhan mas'uuliyiinta ka xidhan labada xisbi mucaarad waxaanu leenahay haddaan qaar ka mid ah qoyskoodii nahay degdeg ah loo sii daayo madaxweynaha halkan waxaan uga jeedinayaa wuxuu dhowr jeer shacabka Soomaaliland u sheegay in noloshiisa laba jeer ay khatar gashay labada jeer uu sheegay in noloshiisu khatar gashay waxa badbaadiyay qoyska uu maanta targetka ka dhigtay waxa weeye madaxweynaha waxaan leeyahay mudane madaxweyne maanta waxa joogta masabkii ugu sareeyay qaranka ninka ragii wuxuu badbaadiyaa amba isaga maris badbaadiyaa dalka iyo dadka badbaadi baan leenahay dalka iyo dadka badbaadi waxaan leeyahay halkan fariin kale uga dirayaa niman wada dhuxuleeda maray oo habeen walba haaf baasta ku hadlayo dadka iyo madaxda xisbiyada qaranka aflagaadeynaya waxaan u leenahay gabaygi Ibrahim Hadraawi mulxiiska qayrka waxa kaaga magac ron adigoo mar guursadaha lagu masxalade war waxaan leenahay wada dhuxuleedaasi ma wadayse kaad u tagteen waxba yeelimayso wax u kordhin maysaan kaad ka tagteen af xun baad kala tagteen oo idinka 24 saacad haafka baastada ku caaya waa inaan xisaabtami doonaa xukuumadda u muuqatay inay dastuurkii meel iska dhigtay shuruucdii dalkan ay ku tumanayso waxaan ka warqabnaa in maanta ama caawa ay noqonayso habeenkii afaraad ee saraakiisha waxa weeye xisbiyada mucaaridkii ay u hooyanayaan jeelka Madheera iyagoo in ognahay waxa lagu qabtay inay tahay waxa weeye wax dastuurku uu sharciyay qodobkiisa 12aad farqadiisa labaad waxay sheegaysaa in muwaadinka saay uu soo abaabuli karo kana qayb qaadan karo waxa weeye mudaharaad isagoo muujinaya mabaadidiisa iyo wuxuu qabo waxaan ognahay in waxa weeyaan ragga la qabqabtay ay ku jiraan wasiirro hore waliba qaabka loo qabtay qaab accidental ay ahayd waxaan sidoo kale ka warqabnaa in 48 saac gudahooda sharcigu uu dhigayo qofka la qabto in la maxkamadayo maxkamadda la keeno wixii markaa lagu soo qabtay waxa weeye la sheego waa maalintii saddexaad bay maanta waxa weeyaan ay Madheera fadhiyaan waa maalintii waxa weeyaan oo daaca way afar ku noqonayso ay u hooyanayaan Madheera waxaan arkaynaa in xukuumaddu ay ku tumanayso dastuurkii iyo sharciga inagu xisbiyada mucaaridka ama isbahaysiga mucaaridku waxyaabaha ay u tanaasuleen waxa kamid ahayd duruufo badan oo ay kamid ahaayeen koow guddiga dhexdhexaadka ahayd oo runtii iyagu damaanad qaaday in waxa weeyaan saraakiisha xisbiga la soo deynayo qabqabashadoodana la joojinayo tiina maanta aanay muuqanin waxaan u turno turaale waxa weeyaan u sameeynay oo xisbiyada mucaaridka ay u sameeyeen ardayda waxa weeyaan gelayay waxa weeyaan imtixaanka shahaadiga ah oo iyaga laftigooda runtii dareen gaar ah aan u qabnay compromise-ka tanaasulka waxa weeyaan sameeynaa baqanaga ma waxay naga tahay wadanka iyo ilaalkiisa laakiin waa la arkayaa cid maanta aan shuruucda dalka ilaalinaynin way muuqataa way caddahay
haddii aan sharciga iyo dastuurka aan la ilaalinna waxay noqonaysaa nin kasta dastuurka inuu gacantiisa ku qaato waananu qaadanaa insha Allah biidni Ilaahi mawla mawduuceeda soo dhaweeyo raggii la xidhxidhay waxa weeyaan maalintii jeelka lagu goray rasaasta la dhacay sida muuqatana waxaan u malaynayaa wadanka maanta dictatorship baa gacanta ku haya wadadu cagta saarayna anigu ma garanayo waxaan ku tilmaamo waxa weeyaan dadka maanta la xidhxidhay ee waliba xabada nool loo quuray ee la dhacay magaca mujaahid leeyahay inay ku shaahayso maaha iskuul laga soo baxayna maaha ummadoo dhammi way soo halgantay waxa weeyaan way soo dadaashay halganku macaashku laakiin inay in gaar noqoto maaha anagu waxaan leenahay oo soo jeedinaynaa anagoo ku hadlay afkii labada xisbi mucaarad raggii la xidhay oo Cabdilaahi Cukuse hormoodka ka yay iyo dhammaan anoon magacyadooda tirinaynta ku jirtaba haddii la soo dayn waayo ragwaana meel xun joogo jeelku waxba ma yeelayo way iska joogayaan iyo way ku jirayaan laakiin haddii la sii dayn waayo oo la soo fasixi waayo oo xorriyadooda ay waayaan waxa weeyaan rag waxa jiri doona sidii lixleynta ugu daataan iyo inay koodbuur soo saari doona oo waliba soo galbin doona Hargeysa geyn doona waa hukuumadda Soomaaliland waxa aad cagta saartay dhabii burburkooda ugu tala gashay Soomaaliland ku burburto waxa weeyaan 30 sano biyalaanahay 30 sano waxaan ku wax walba nagu barareen muraad kamalihin nabadaanu eeganaa waxaanu ixtiraamanaa dastuurka haddii 94kii ayaad Muuse taariikh madow gashay 2022 kana waxaan filayaa inaad baal madow kala gali doonto ragga xidhxidhan ee Cabdilaahi Cukuse madaxda u yahay ee labada xisbi mucaarad iyo reerka taargetka ah garxaajis la yiraahdo imika eryanayso haddii aad degdeg u soo dayn weydo madaarka Hargeysa ka soo degimaysid buurta kala jeexnid ka soo degtaan ku sheeganaa notice kaan ku siinano diyaaradda ku sidaa buurta kala jeexan ha soo fadhiisato annaga hal noo taala maaha kabahan kula diyaarnay baca uska ku jiraan kula diyaarnay laamiyada soo marimaysid waanu goosananaa intaan ku leenahay degmada Hargeysa la soco dhalinyarada xaafadda baaqi ugu dambeeyay bay halkan ka dirayaan dhalinyaradu waxaanu codsanaynaa oo fariin u diraynaa xukunka wadanka ka jira ee dictatorka iska dhigay dictator maahe ayaanu fariin u diraynaa si bilaa shuruuda inay u soo daayaan mas'uuliyiinta xidhan ee sharci darrada ku xidhan waxaanu fariintii u dambeysay u diraynaa maanta xukuumadda oo leenahay anagu mar dambe TV soo istaagmayno gacmaha yaga ayo anagoo isku kalsoonayaan wax kaga qaban doona mas'uuliyiinta xidhan hadii degdeg loo soo deeyo waxaanu halkan kaga hadlaynaa waxaanu cambaaraynaa oo cambaar dhakada kaga tuuraynaa xadhiga ragga la geeyay Madheera iyagoo waxba galabsanin Cabdilaahi Cukuse Yuusuf Kayse Mawlid Muuse Dacar Ilyas Kiiniyate Xamarje Allah musta'an Maxamed Shariif raggaas waa mujaahidiintii dalka u soo halgamay xaq iyo xuquuqda badan Soomaaliland ku lahaa waxay galabsadeen oo lagu xidhayna ma jirto waxa weeyaan anagu waxaanu leenahay xadhiga waan cambaaraynaa madaxweyne nimanka si dhaqsaay isaga siida haddaad iska sii dayn weydood nimanka haysato waxay ka xumayso ma waxba ku kordhin mayso waxa weeyaan labada xisbi mucaarad xaq bay u leeyihiin inay mudaharaad dhigaan inay dareenkooda cabiraan haddii aad madaxda xidhxidhato halka ku haysato maalmaha kamid oo ka shanlayn doontaa baan ku leenahay adiga inta ku nacmalaynaysa aad fadhiimaysid kursiga lagu ma alxamin miya lagu alxamay maalinba nin baa fuulay nin baa ka degaya waxba ismacaanaynin wallahi halkaaga lagu imanayaa waxaan bartan ka cambaaraynayaa madaxweynaheena Muuse Biixi oo marka lahayd in taliya oo halay kaco oo halay codeeyo oo kursiga fuulaysay waxaad ku bedeshay dadkii tacabkaaga iyo xoogaba ku soo galiyay codka ku siiyay inaad maanta ku xaragootad adna ayar jilibka cagta ugu garaacdo waxaanu ka yeeli doona maaha in badan ayaanu dul qaadanay cod aad naga helisaana ma jirto nabad aad naga helisaana ma jirto waxaanu u xilkaamsanaan ogol lahay madaxdeeda waaweyn iyo oqaashayada iyo culimadayada naanu tixgelinayno maanaan garan waa inaanu bartaada kuugu nimaadno maanaan garan waa inaanu runta kuu sheegno laakiin madaxweyneyaalka horeeyay baa jirayo si xaragal inta u kore si xaragal looga tagay maaha kursigu meel lagu dagaalamo meel la isku dhajiyana maaha gurigaagina maaha horta waxaad kala garataa kursigan inuu yahay meel public ah oo qof la soo marayo laakiin haddii aad garan weyday inuu kursigan yahay wax meertaa gurigaagii horta kursigaaga kala garo kulay maanta taariikh baa qormaysa waxaan u malaynayaa maanta Muuse Biixi shalay waan hees maqlayay lahayd kaligii doobiyaha talada ka duda darajo ma hele maanta taagan tahay oo ay heestii iyo waxay ku saabsaneedba inoo soo baxday runtii aad baan u cambaaraynayaa xadhiga sharci darrada ah ee nimanka xisbiyada ka tirsan mucaaradka lagu xidhxidhay
shalay wixii isaga la saxsanaa ay waliba dadku ugu dhinteen baabuurta dawladda u gubayeen isaga yeena kahayn ayay maanta dadkii ku haystaan oo waliba iyaga oo cidna xukumin ma dheer geysanaya waxaan leeyahay waa wax aad beeranaysaan hadhow yaana qoomama iman mugga iyo miisaan kale ee mujaahidiinta leh ee siyaasiyiinta leh ee qof kasta oo bulshada miisaan culus ku lahaa waxaan leenahay madaxweynaha iyo wasiiradiisa xariga geysanaya ee dadka caburinta ku wada inay ka daayaan bulshada waxaan leenahay oo faraynaa inay sidoo ugu dhaqsiyaha badan xorriyadooda ugu soo celiyaan inamada xaafadda oo dhashay ee ilmaadeeradaya ee mar walba doonaya labjab inay u geystaan adeeradood ya magaca garxajis magac lagu kabeeyo maaha dadka waa magac kor u taagan waa magac isle waa magac maamuus leh haddii la yidhi biriishka ma soo dhaaftaan annagu biriishka intaanu dhaafnaanu magaaladan leenahay aan u sheegaya inamada la biriishka ma soo dhaafaan waanu dhaafaynaa maxay toolay ood weyne meel waanu dhaafaynaa waxaanu sheegaynaa inuu garxajistan leeyahay ya horena annaga u hagaajinay maantana annaga u hagaajinayna wasiiru daakhiliga hadda jeeraale jecel inuu sharciga ku tunto ina kaahinow maaha sharcigu waxaad ku haysato gacantaada kulna saacadda doontaad ku fushinayso wadana madaxweyne sharciga ku soo dabaal dadka iyo dalka haddii aad u cadaalad samayn weydana ma xidhnaanayaan maanta waa maalintii u dambaysay ee halkan aanu kaala hadalno waana maalintaydii horraysay sida ugu dhaqsaha badan haddii aad soo doyn weydo gacantaada inay ku duntay ku talagal dal badbaadin baynu sugu nimi Soomaaliland baynu badbaadinna Soomaaliland waa isku wada beel ma kala aha Hargeysa iyo Berbere iyo Burciyo waxa sixir bararku halkii lagu mariyay waa waqti maanta nimanka madheere la geeyay ee madooba dheeraha sidii berigeen dawladda kacaanka lagu qaaday iyagoon maxkamad la geeynin waynu ka warhaynaa shuruucdii aynu dhiganaba aynu ku kala soconaayee ma noqonayso inta halkan qof laga qaado in la iska qaado madheere lagu soo xidho dastuur jabintii ugu weyneed ee qof bini'aadmi Soomaaliland ka gala madaxweynaha maanta jooga galay kuwa qolada ku difaaca ama mushaharaadka yaryar uu qoray ee qaranka ay ugu shaqeynayeen moodayeen isaga u shaqeeyaan ayaan su'aasha weydiinaya Saleebaan Nuur baa joogay maalintii golaha guurtida uu inaga joojiyay Maxamed Cabdilaahi Farmaajo isagoo xambaarsan Muuse Biixi Cabdi bal ha ka jawaabaan Hargeysa keenayay Farmaajo miyuu aqoonsanaya Hargeysa markuu Muuse keenay waa dastuur jabintii ugu weyneed qof bini'aadmi ku kacaweeyeen oo madaxweynaha qaranka isagoo ah ayuu dadkii u dhaartay been u sheegay Farmaajo Hargeysa loo keenay maanta Cukuse iyo Yuusuf Kayse iyo Xamarjiye inta la midkee madheera lagu xidhay may sameeynin wax isagu sameeyay wax Farmaajo Hargeysa bay keenin dad dareenkooda cabirayay qaarna kamid ahaayeen qaarna kuma bay jirinba si gaar ah uu tarkid garanaya Nagiib Cabdilaahi Hawla telefishinka caalamiga ee bulsho magaalada Hargeysa